wasiirka arrimaha dibadda Taiwan Joseph Wu oo warbaahinta caalamka tusaya sawir ay horaantii sanadkan wada galeen madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen iyo wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Yasin Faraton xiriir cusub ayaa u bilaabmay waana laba dal oo midna aanu haysan aqoonsi caalami ah kuwaasi oo ku kala yaala cirifyada bari ee qaaradaha Afrika iyo Aasiya. Taiwan iyo Somaliland waxay kala saxaadeen heshiisyo cusub kuwaasi oo hordhac u ah xiriirka u bilaabmay labada dhinac waxayna sheegeen labadooduba in xafiisyo diblomaasiyadeed ay isdhaafsan doonaan. wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Yasin Maxamuud Xiir Faraton ayaa bishii February ee horaantii sanadkan 2020 ku tegay socdaal aan la shaacin caasimadda dalka Taiwan ee Taipei isagoo halkaasi kula kulmay madaxda ugu sarreysa dalka Taiwan gaar ahaan madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha dibadda Taiwan. wasiirka arrimaha dibadda Taiwan Joseph Wu oo shir jaraa'id ku qabtay caasimadda Taipei ayaa warbaahinta u sheegay in isaga iyo dhigiisa Somaliland ay kala saxaxdeen heshiis laba geesood ah kaasi oo ku qotomay xiriirka cusub ee u bilaabmay labada dal. Master Wu ayaa waxa kale uu sheegay in dhawaan Taiwan ay xafiis diblomaasiyadeed ka furan doonto Somaliland waxaana arrintaasi ay qayb ka tahay xoojinta xiriirka aan la leenahay dalalka Afrikaanka ah gaar ahaan wadamada bariga Afrika. ayuu yiri Wu 中国跟索马利兰并没有建立正式的这个邦交关系。那我不认为说中国在这方面会跟台湾因为这件事情而关系变坏。labada dal ayaa iska kaashan doona horumarinta kalluumaysiga, beeraha, tamarta, macdan qodista, caafimaadka bulshada, waxbarashada iyo tiknoolajiyadda ayuu sheegay wasiirka arrimaha dibadda Taiwan. inta lagu guda jiro xanuunka COVID-19 way socon doonaan dhismaha xafiisyada labada dhinac waxaana xiriirkan saaxiibtinimo aan dhisaynay buu yiri Master Wu ilaa sanadkii 2009 annaga oo kordhinayna iskaashiga xagga amniga badaha, caafimaadka iyo waxbarashada. Wu ayaa waxa kale oo warbaahinta u sheegay in hadda ka hor ay Taiwan tababartay 23 mihnadayaal caafimaad ah kuwaasi oo ay soo dirtay dawladda Somaliland haatana ay jaamacadaha dalka Taiwan ku jiraan 3 dhalinyaro ah kuwaasi oo dalka ku jooga deeq waxbarasho。我国即将和索马利兰共和国附设代表处的消息。外交部长吴钊燮满脸笑意，因为我国外交传出重大突破。外交部1号正式宣布和非洲国家索马利兰互设代表处。geesta kale haweeneyda madaxweynaha ka dalkaasi Taiwan Tsai Ing-wen ayaa qoraal ay soo dhigtay barteeda Twitter-ka waxay ku sheegtay in ay aad ugu faraxsan tahay kulankii ay horaantii sanadkan la qaadatay wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Yasin Faraton. Taiwan iyo Somaliland waxay dhisayaan xiriir laba geesood ah oo ku salaysan qiyam wadaag waxaana rajaynayaa furitaanka xafiisyo matala labada dawladood si loo ballaadhiyo iskaashi waxtar leh oo labada dhinac ah ayay tiri haweeneyda madaxweynaha ka dalka Taiwan Tsai Ing-wen. dhankiisa waxa isaguna qoraalkaasi kaga jawaabay bartiisa Twitter-ka madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. jamhuuriyadda Somaliland iyo wafdigeedii waxay idinka mahad celinayaan soo dhaweyntii diirameed ee aad ugu samayseen Taiwan horaantii sanadkan sidaad qeexday xiriirka laba geesoodka ah ee Somaliland iyo Taiwan waxaa lagu dhisay qiyam wadaag iyo is-ixtiraam. xafiiska wakiilkayagana dhowaan ayaa laga furi doonaa Taiwan ayuu yidhi madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. xiriirka cusub ee u bilaabmay Taiwan iyo Somaliland ayaa waxa si weyn u qaadaa dhigtay warbaahinta caalamka iyo tan gudaha ee Taiwan iyadoo warbaahinta caalamku ay bogagooda hore ku daabaceen Taiwan iyo Somaliland oo ku dhawaaqay xiriir laba geesood ah. Taiwan oo ah jasiirad ay ku nool yihiin ku dhawaad 24 milyan oo ruux ayaa waxa madax bannaanideeda si weyn u diidan dalweynaha Shiinaha oo ka mid ah dalalka ugu awoodda badan qaramada midoobay. tan iyo markii xilka ay qabatay haweeneyda madaxweynaha ka dalkaasi ee sanadkii 2016 dalweynaha Shiinaha ayaa xiriirka u jaray Taiwan. wasiirka arrimaha dibadda Taiwan ayaana sheegay in cadaadiska Shiinuhu uu ku hayo Taiwan uu yahay mid aad u weyn. waxaase xusid mudan in Taiwan ay tahay dal horumar ballaaran ka sameeyay dhinacyada dhaqaalaha, waxbarashada, tiknoolajiyadda iyo dhammaan kaabayaasha kale ee dhaqaalaha. Somaliland ayaa iyaduna ah dal bulshada ku nooli ay gaadhayaan 4 bilyan waxaana iyadana si weyn u diidan in ay noqoto dal caalamka laga aqoonsan yahay dalkii ay ka go'day ee Soomaaliya. waana caqabadda koobaad ee haysata labada dalba in ay ka mid noqdaan qaramada la aqoonsan yahay iyadoo xukuumadda Somaliland ay dhawaan wakiil cusub u magacowday dalka Taiwan kaasi oo ka shaqayn doona
sii xoojinta xidhiidhka labada dhinac. si kastaba ha ahaatee waxa uu xidhiidh cusub u bilaabmay laba dal oo aan la aqoonsanayn aadna u kala fog, balse waxa ay wadaagaan jacayl qoto dheer oo xorriyadda iyo dimuqraadiyadda ah, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda Taiwan.